Waxaa maanta xaflad caleensar loogu sameeyay nabadoonka Jeemaka Guud Irdid Beesha Warday Cali ee ay hoos imaanayaan saddexda xara ee Dadaab. Xafladaas oo lagu qabtay xarada Ifo taariikhdu oo ay tahay taariikh 26 bishii 6aad 2024. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معي حليل عبد بشير معلم محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. dhammaantiin waad salaamantihiin dhammaan waad salaamantihiin 114 quraan kariimka ayaan idinku salaamnay. Waxaan u malaynayaa waxaan la sugayay warbixin ayaan la sugayay ilaa waqti badan sanad ku dhawaad soo socotay ayaa maanta inoo soo gabagabaatay. Waxaan dooranaynaa chairman hogaamiyo beesha la yiraahdo Irdid ayaan qaabkan ku dooran lahayn ayaan ka soo shaqaynaynay waqti fara badan. Maanta inoo soo gabagabowday xalfadii baan u fadhinaa maanta insha Allah. Rag odayaal ah oo 12 xubnood ah ayaa loo bixiyay 12kii ayaa soo xuleen arrinta ayada ah. Xagga dhalinyarada waan ka xulnay, odayaashan ka xulnay, guddiga dhaxdiisaan ka xulnay, odayaasha kale naga maqan beelaha kale waan ka xulnay wixii naga maqnaa. Ninka asaga waxaan ka helnay guddigii 12 xubnood dhaxdiis ayaan ka soo xulnay. Waxa waaye ninka asaga la yiraahdo Mooge Faarax Diima oo ninkan gacantayda bidixda taagan waa gudoomiyaha chairmanki waxa waaye Irdid nabadoonki waxa waaye Irdid. Waan soo dhaweyno gacmo furan aan ku soo dhaweyno waa walaalkeena waa odaygeena annaga 12 xubnood waan soo qaadanay talow ma nala qaadeen ninkaas Mooge ah. waad mahadsantihiin barakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان وحان سلام يا دتكن هلكن isugu imaaday beesha Irdid oo dhalinyaro iyo odayaal iyo culimo iyo dumar male aad baan idin salaamaya. Waxa Ilaahay maadiis ah Ilaahay baa iskale mahaddan insha Allah taala oo xafladan qiimaha badan inaan halkan aan ku kulanno oo maanta intaan tashanno aan si fiican isu maqalno oo aan mas'uul samaysanno Ilaahay inoo suurageliyo horta yaa mahadsan marka hore. Marka labaad intii qaban qaabisay oo isku soo duuday xafladan Ilaahay idinkiis oo sharafta badan baan ayagan u mahad celinayaa. Insha Allah taala mas'uulka aan qabsanana Ilaahay waxaan ooga tuugaynaa inuu noqdo mid cadaaladda ku dhaqmo oo cadowga iska dhiciya oo Irdid isu keena oo si wanaagsan u hogaamiyo Irdid dal iyo dibaddaba inuu noqdo baan Ilaahay uga rajaynaynaa. Waxaan maqlahay dad ka xun inay Irdid midowdo dad ka xun baan maqlaynay oo meelaha hadalla xun iyo hanjabaad soo dirayo. Irdid ma aha mid wado dhibaato Warday wado ma aha. Irdid waxay wadaa in ay Warday midowdo oo Warday hor u socoto. Warday hor waa la soo socodsiin kar waaye way socon waysay meel ay u jeedeen meel kale waa kala garan waaye. Waxaa la yiraahdaa dameer ceel ku dhacay koy baa lagu da'aa. Rag baa waxaan ka shooray oo waqti badan juhdi ku bixiyay. Irdid baritina waa wax Ilaahay noo dhaliyay wax hadda oo la sameynay ma aha laakiin hadda Ilaahay na fahansiiyay haddii dadkii uusan meel u dhaqaaqaynin in bal feeraha la kala qaado oo gacmahaas Ilaahay u abuuray haddana farihii baa saas Ilaahay oo kala bixiyay wax xumaan oo Irdid walato iyo nin ay maartay caqabad ku tahay ma jirto. Aayaheeda ka tashanaysaa annaga walaalnimaan wadnaa tolnimaan wadnaa horumar baan wadnaa colaad ma wadno xumaan ma wadno nin aan lid ku nahay male tolnima wax ka fiican male inaan isgarabsanno oo aan kala foofno oo nin walba daniis u gooni u raadsado wax ka fiican ma jiro. makhluuqa wadanka Ilaahay nala degan gaal iyo muslimba jifa waaye. waxaan u qadnay oo dawlad federaal uga qadnay oo maamul goboleed aan uga qadnay oo aan wax u noqon laanahay waa halka qoyska way Ilaahayna wuu na badiyay. Irdid hadda nabadoon bay qabsaday ku kalna waa raadin doonaa ku kalna waa qaban doonaa Ilaahay baa na badiyay hadduu Ilaahay idmo hor aan u soconno waan ku dheeraa dad badan baa sugayaa
horaan u soconno وسلامتين انت حرمتك كسوق قشة انت سوق الغالش انت ودada ku soo jirto ilaa 7 ba soo wadi 4 sano 5 sano arintan soo shaqeysay meel la gaarsiyo la waay waxaan ugu kallifay meel aan wax geynaa ma ka silaanahay haddaan odayaasha lahayn maamulka aan nahay rag waa la shaqayn laanahay tolka waa la shaqayn laanahay bal cadada irdiid ay dhan firi laba iska si male walaalta midan ka soo qaado bal hatta intan irdiid waa leeyahay wax iska sina male see wax ku qabsanaa waxaan meesha uga qaadnay odayaalkaan dhigan waxaan uga qaadnay inaan meeshan dhaqaajino kor u dhaqaaqno maxaa waaye inay labada isla dhalato ogaato irdiida bareytima kaar ha u shirto irdiidna kaar markii mawlacana waa isla bixinay waana kala bixinay wixii dhiba imaado geesaan ka wadna cadow dhan geesaan kana wixii dhaqaale ina meelu noo wada yaal maxaan haleynayno annaga tol u dhimahayn walaalayaalow rag iyo dumarbo waxaan idinka codsanaynaa horta tawfiiqaan helno intan markaan soo hardamayna annaga odayaal baana horaan u hankuufnay waxaan dhalnay iyo waxaan naala dhashay iyo waxayna eelka ama hilba ah waxaan rabnaa inaan isxawaalno cadowg inaan iska kaashano ninkii la dhashay inuu ogaado waddada aan furayno in ilmahay ku dhaqtaan aan rabnaa annaga dad badan caaqil ah isukaya irdiid ah oo maanta hadalkan u riman waa salaamantihiin أنا مدعي وحلي ردا عبد حاجي محمد روبا وإذن سلام دمانتين odayaasha ka soo qayb galay xalfadan aadka u qiimo badan waxaan doonaynaa marka maanta isbedelka horta aan doonayna maasha allah ilaah baa noo miro dheliyey waanan helnay irdid maanta waxaan u malaynaya inay tahay maalintii ugu wanaag badneed ay heshay waxa ay doonaysay inta badan ay kusoo taahaysay arrintaas ilaahay waa mahad iska leh ilaahay subxaanahu watacaala baan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon doonaynaa ugaaskii aan doorannay waa kan garabkayga taagan insha allahu tacaala kulli odayaal naga joogaan waa loo duceyni doonaa insha allahu tacaala waxaan doonaynaa arrintan inaan garbahaas ku qabsanno la garab istaago qof walba oo maanta irdid oo taagan ama maqan inuu meeshu taagan ka hiloodo uu arrintan garab istaago dhammaan waan idin salaamayaa rag iyo dumarba anigoo ah magacayga mooge faarax diima waxaad maanta lii gartay tolkayga irdid in lii doorto oo liiga dhigo chairmanka guud in liiga dhigo tolkayga wuu ku mahadsan yahay xilkaas waan qaaday waxaan ku qaaday in aan cadaalad ugu shaqeeyo irdid iyo beritimaba khaasatan irdid inaan maaragtay cadaalad ugu shaqeeyo oonan wardey aanan kala godbanin inaan magaca wardey aanan kala godbanin yaan ugu shaqaynayaa cadaalad baan ugu shaqaynayaa waxaan u baahnahay in layska saaro uurxumada iyo qalbi xumada iyo daciifnimada in layska saaro ilaahay baa qani naga dhigay maanta wardey nabad bay qabtaa balaayo ma qabto alxamdulilaah ummadaha kale waxay qabin baa ilaahayna siiye annaga inaan ilaahay aan ku shukrino yaa loo baahan yahay horta waxaan rabnaa irdad markii la yidhaahde waa irdad iyo beritima laba lafood oo isgarab socoto inaan noqono maxaa yeelay qabaa'ilka say ku dhaqmaya inaan ku dhaqano ma rabno wax wardey kala geynaya inaan meesha soo dhigno ma rabno wax laba ninoo wardey ay ku aqdadoobina ma rabno waxaan rabnaa haddaan irdad nahay meeshan maanta aniga ninkii loo doortay aan ahay in aan tolka aan guud aan ugu shaqeeyo si cadaalad oo ilaahayna uu igu ogyahay walaalayaal waana xil weyn ilaahay ha igu garab galo waxaan aad u jeclahay waaseyda culamo udiinka fadhiya dhammaan dhallinyarada in faatixadana liigu maro ilaahay kuuma darnaada liigu faatixeeyo yaan idinka codsanayaa talow xilkaasna liila qaado waxaa kale oo liigu xijiyey oo ku-xigeenkayga ah mawluud booya geedi darso oo xarada dhagaxley ka imaaday insha allaahu inaan wada shaqayno oo irdid
kor aan u qaadno tolka wardeey oo dhan aan kor u qaadno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal maanta waxaan isugu imaanay kolley halkan nin walow hadda goobjoog ah wuu ka warqabaan u malaynaa si wanaagsan ula shaqeeyo si sharaf leh ula shaqeeyo dadkeenna iyo dadkeennaba aan si fiican ugu shaqeyno iyo diinta intaba saddexda xara deel dhagaxley iyo inta kaleba oo ilaahay gacanteena u gaarsiin karo. walaalayaal waxaan rabaa haddee xil mas-uulad adag ayaa noola doortay aad u adag waa xil adag oo mas-uulad adag ah. ilaahay hanala garab galo ilaahay idinkiis kuwa annagana xilkood gutay allah hanaga dhow. xilkaas ayaa noola doortay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anoo ahay cabdiraxiin maxamed macalin ibraahim aadan waxaan halkan mahad aan ugu celinayaa ilaahay baa mahad iskale. halkan maanta waxaa iskugu imaatay beesha wardeey, haween leh, culummo leh, dhalinyaro leh, dhammaan ayaa la iskugu imaaday. waxaana la iskugu imaaday beesha wardeey beel ka mid ah oo irdiid ah in nabadoonyihii hore ay beddeshay, nabadoonyo cusub ay samaysatay oo aayaheeda ay ka tashan hayso. beesha irdiid ma aha wax hadda un koob loo samaynayo ma aha. nabadoonyo horea jireen, kuwii hore waa la bedelay marba macnaha maxay aheede qof baa maamulka qabto. nabadoonyo cusub aan samaysanay. waxaa nabadoon maanta nabadoon ka samaysan oo lagu soo dhaway beesha irdiid ay ka samaysatay nabadoon ama jeerman mooge faarax diima. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan walaalaha meesha iskugu imaaday waa idin salaamayaa. salaan kadib meeshan waxaa iskugu imaaday irdiid iyo bereytima wardeey ah. hawshan waxaan soo wadnay muddo maaragtaa sanad ku dhow ah. muddo sanad ku dhow ah hawshan soo wadnay. walaalayaal saa ogsoontihiin meeshan aan joogno waa meel ku meel gaar ah. dani baan leenahay. dadkana walaalkana wuxuu tol ku yahay inuu isgarabsado meeluu joogo, inuu isgarabsado uu iska warqabo. nin walba ninka kale wuxuu qabo magta iyo hadduu ilaahay ka raaqto duugta iyo jareexada intaasba inay maaragta lagu mido walaalaha la iskaga warqabo. ilaahayna dhalashada wuxuu u suubiyey, raximka wuxuu u suubiyey inay isu gargaaraan oo isu maaragta isu dumaan oo hadduu ilaahay ay isu xanuunsadaan meel ay joogaan iskaga warqabaan. asalaamu calaykum. beesha irdida maanta loo dabaaldegahayaa. odamoogo faarax ayaan dooranay. maasha allah, rag iyo dumar waan ku faraxsannahay. allah ha noo badbaadiyo. ninkii na hogaamiye oo mustaqbalka lahaa allah ha nooga dhigo. oon ku soo hiranna beeshana kor u qaaday insha allah biidnillaah. gabdhaha tolka oo beesha irdid waxaan ku boorinayaa inay maqal samaystaan. bismillaahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan beesha wardeey meel ay joogto dal iyo dibadda, gaar ahaan beesha irdiid. sida ay sheegtay gabadha meesha fadhiga aan ka kacno, aan guntano rag iyo bilcaanba. waxa nagula liido waa annaga isla ciifanimo liciifaan ma nihin. waxaan leeyahay sidan si aan ka bedelno oo fadhiga aan ka kacno